dowladana waxaan ka codsaynaa dhaarta badan iyo qababacda iyo booliiska iyo militariga cadow leesaga dhigay iyo dadkii oo loo dhaaraaya ha dhaafta dowlo waa dadkii 4.5 wax lagu qortay dib u heshiisiin oo rabaa dadka waa diriray waana kala shakiyay hadda leesu keenay wixii loo dhiibayaan laga weyninayn kala daadinnan leh ciidamadoodii la dhowaya 3 walxaato ay u dul qaato waayaan dadka canshuurtan ka qaada canshuur qaran waaya la dhowaa ciidankaagana ciidan beeleed waaya la dhowaa odogi ka waramay wax urintagana qaran dumis waaya la dhowaa 3daas walxaatan isku makayna qabato waxaan dhidhimino dad mas'uuliyiin isku sheegaya oo dhibaatadii labada maalin socotay dhahaya dadna ma dhiman dhibaatana beledka kama jirto waa ka xunnahay dadkaas waxaan leenahay dad oo dadka loo idmado maahin dad badan oo shacab ah oo ummad Soomaaliyeed ah ku dhimatay dad badan ku rugmaday dhibaato badan ka dhacday waxaan dareemaynaa oo diriray oo inay dagaalaan ana rabin ciidaman dawladda kuweeraa oo kala libisan ma rabna anunku dawladdu inay dagaalanto dawladdu waa dawladdaani inay isgoysiya iyadu ku dirirta ma rabno in shacabku ku kordhinta ma rabno waa ka xunnahay mas'uuliyadaas cid leeyahay waxaan leenahay hal ma laabto ee ha qaadato yaa loo naqan shacabkuna ha badbaado wadooyinkana ha la furo sida dhaqankuba hore u sheegay shacabkii oo la dilay ee meydkiisa wadooyinka la wadana la yiraa wuxuu ahay bambatuur anu ka naqan waa khalad arintaasu shacabkan oo hadla iyo shacabka dhibaatadiisan ku farxa wax isqabta maahan dawladuna mar allaaleeyo marka ay hadasho waxaad moodaa xoogaa inay boogaha dhiminayso ee inay hadda anta dalooro wado uma muuqato waxaan leenahay waxa la yiraahdaa waraabaha iyo ilmuhu isma yaqaaniin balse waayeelka isku diraa la yiraahdaa waayeelka waraabuhu weylaha kama weyno ilmahana waa ilaalshaan weylaha yaryare ilaalshaan waraabuna kama weyno waxa ku diraayo dhaha waraabuhu iyo idin cunin dadka u cunaahay waayeelka waxaan leeyahay shacabka iyo dawladdu isma diidano waxa isku diraayo waa siyaasiyiinta